السلام عليكم ويلكم باك تو قدر نفtaada asxaabta maanta waxaan sameysanaynaa haduu ilaahay yiraahdo rootigan oo aad u jilcan ilmahaada ay ka heli doonaan ama qofkii cunaba uu ka heli doono rootigan waxaad cuni kartaa snack camal casho ilmaha waa u siin kartaa ama quraac camal waad u siin kartaa rootigan rootiyada kale uu ka bedelan yahay waxaana taas keenayso maado yar oo lagu dari doono halkan waxaan ku haystaa 2 qaando sokor ah hal qaando leebite ah iyo wax yar oo cusbo ah hadaba sidaad iga barateen mar walbo insha Allah wixii qoran hoos ayaan idin soo dhigayaa nus koob saliid halkan ku haystaa waan ku darsaday waxa kale inta u baahan tahay caano koobkii aan ku cabiran lahaa ayaa iga maqan soo koobkan ayaan haystaa maadaama uu koobkii iga maqan yahay cabirka kan wuxuu iga noqonayaa 3 laakiin se asagoo saxsan aniga hoos idin soo dhigay insha Allah hadaba sida u jeedaan caanaha waxa uu dib marayo biyahana waxa fiican wax yar inuu qandac ahaado markaad intaas isku darsato waxaad ku darsanaysaa qalka ayaa marka aad u jilcinayo rootiga insha ayuu ku soo bixi doonaa insha Allah idinkana waad ka war heli doontiin waxa kale oo u baahan tahay ukunta waxaad ku darsanaysaa ukunta cadaanteeda bas gaduudkana waxaad dhiganaysaa meel hadhow ayaan isticmaali doonaa gacmahaada soo nadiifso ka saxay gacmahaada ayaad ku qasan doontaa hadane burkii ayaan ku darsanaynaa hadaba saa u jeedaan burkii waan isdhex gelinayaa meeshaan marka hore ayaan nadiifsaday hadaba sida u jeedaan waa soo dhex bishtay kadibna baaquligiisa ayaan ku ridanayaa saliida kadib waxaan ku darsanayaa toonta iyo basal basashii kadib markay saas noo noqoto waxaan ku darsanaynaa hilib hal qaando xawaaji ah iyo nus qaando cusbo ah يعني شيشيت
kadib waxaan ku darsanaynaa karootadii. halkan waxaan ku haystaa paprika, kadibna waxaan ku darayaa barbaroonigii iyo kabsartii. haddaba sidaa ujeedaan waa kana burkii oo soo khamiiray. waxaan ka dhiganaynaa 12 kuus. waxyar saliid ayaad u baahan tahay, koob. markaad ku shubto waxaa u baahan tahay waxyar in qaandada saas ku dhahdo si uusan u soo daadaalin. haddii aad xasuusataan markaa rootiga khasanayni waxaa reebanay jaalihii, cadaankina rootigaan kula khasanay. hadda waxaan sameynaynaa jaalihii ayaan geesaha ka marsanaynaa. toban daqiiqo ayaan mara ku daboolanaynaa. 10 daqiiqo kadibna waxaan gashanaynaa foornada. sidii aan maxay ahayd rootiga u dubatid bay u dubanaysaa 15 daqiiqo. kadibna markaa foornada ka soo bixiyo ayaad arki doontaan insha Allah. waa kana 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo oo ku jiro foornada. ma sha Allah, soft sagaran hubaal waa laga sheekeynaa insha Allah. please like, share, subscribe. thank you. intaan iyo fiidiyowga dambe fi amaan Allah.